بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوا جلالكينا قاعمة فرن قلبي صافي وادين سودوينا سومالي وين وان إذن سلام عامل بوجوكتان مالي ونأكسن ما أنتم مدوعين وحوكو سابسين هاي qofka sunta ah see aniga aan ku dareensiin karaa inaan ahay qof asaga ka guuleystay oo aniga aanan ahayn qofkii asaga uu doonayo oo sida asaga uu rabay aanay ahayn. goormeesa tahay asaga goorta uu quusanayo qofka sunta ah ee aniga nolosheeda ku jiro? goormuu iga quusanaya? goormee uu ogaanayaa inaan aniga ahayn qofkii saxda ahaa ee asaga uu ku ciyaari lahaa ama uu ka samaysan lahaa sida asaga uu rabo? mar walba waxaa fiiro gaar ah markaan asaga dhahaayo ulama jeedo lab. guud ahaan dadka sunta ah rag iyo dumarba waxaa way leeyihiin, lab iyo dhidigba way leeyihiin soo ma. laakiin markii lagu hadlaayo hadalkii waxaa u fudud yani in ay u muuqato inaan shakhsiyan yani aan u hadlayo sida labka aan ka hadlayo kaleenta, laakiin maaha muhiimada waa inaad fahamtid taas. asaga markaan dhahayo yani ayagoo dhan waaye shakhsiga sunta ah asaga ayay ku habboon tahay markii la dhahayo markii laga hadlayo sunta nooc walba ay yihiin, ha ahaado narcissistia ha ahaado kii kaleenta kasii khatarsanaa. waxay ku habboon tahay markii laga hadlayo habka yani sidii lab ahaan in looga hadla, laakiin muhiimad maha in labka aan ka hadlayo oo bini aadanka lab iyo dhidigba wuu leeyahay. haddii dumar ay ahaan leed iyo haddii maxay ahayd rag ay ahaan lahaayeen intaba waxaabay way leeyihiin. marka qofkaas aniga oo maxay ahayd sunta ah ee nolosheeda ku jiro wax badan waa soo sheegay, waa soo iftiimiyey, waana iftiimin doonaa intii awoodeed ah biidni illaahi alkariim. qofkan amba xaaskayga ha noqoto amba seegayga ha noqdo, xiriirada waxaa way kala dardaran yihiin. waxaa ugu xun markay noqdaan darajada koowaad noloshaada, amba hooyo amba aabo amba walaal amba wiilaa dhashay amba xaaskaaga amba seygaaga. waxyaabaha ugu xun waa qof weliba markuu noqdo qofkaas qof aad meel ku wada nooshiin, mararka qaar ayagoo darajada koowaad la wada yahay ay haddana dadka aad kala fogaan kartaan. taas xataa waxaa waaye waa ka amaan helaysaa. alxamdulilah nicmo waa ilaahay uu ku siiyo dad kale meel aad joogtaan, laakiin waxaa sii khatarta sii badnaanaysa markaad guri aad ku wada nooshihiin oo habeen iyo maalin aad is arkaysaan ee qasab tahay inaad iska soo horbaxdaan oo aad wax wadaagtaan. taas way sii dhib badan tahay. marka see aniga qofkaaneeti aan uga guuleysan karaa? goormees asaga uu quusan karaa? waa su-aal isweydiin leh oo maxay ahayd mar walba kugu soo dhaceyso. adiga waa iftiimisay dadkii sunta ahaa, tayib see aniga ugu guuleysan karaa qofkaaneeti? goormeese tahay goorta uu nolosheeda u ka baxaay? ma laga yaabaa inuu nolosheeda ka baxo? horta haa, waa laga yaabaa. rajaan ku gelinayaa, weliba rajo aada u qurux badan. mar walba inaad rajo lahaatid way qurux badan tahay. haddii xaalad walba aad ku sugan tahay xitaa waxaa waaye nicmooyinka ilaahayna siiyay ka mid tahay. noloshaada wuu ka baxayaa, laakiin goormuu ka baxayaa? waa tan isweydiinta leh. wuxuu ka baxayaa markaad adiga aad yeelatid awood, aad tusisid, uu kaa arko in aanad maxay ahayd aanad u samaynaynin waxa asaga uu kaa doonayo. qofkii sunta ahaa wuxuu kaa rabay markuu arko inaanu kaa helaynin waa ka baxayaa. markuu ogaado inaad adiga go-aan ka qaadatay oo aad tiraahid bes waaye oo maxay ahayd soo noqosho dambe rajabeel uu ku dhaco oo uu kaa quusto, qofkii uu dareemo yani in soo noqoshadii ay adag tahay, noloshaada wuu ka baxayaa. markaasiiti goormeen ka guuleysan karaa? mase ka guuleysan karaa anoo noloshiisii qofkii ku jiro? masalan xaaskaygii waaye inaan furo ma rabi, way dhici kartaa soo ma, oo sunta ahayd. saygeygii waaye inaan kala tagno ma rabi, weli waxaa waaye rajaa iiga dhiman. qofkan weli waxaa waaye rajaa iiga dhiman oo aniga maba gaarin, mana rabo horta inaan kala tagno. dad noocaas way jiraan. marka see ula noolaan karaa? see aniga aan u dareensiin karaa oo ugu ridi karaa rajabeel ah inaanu iga helaynin qofkan sidii asaga uu rabay? kow, markuu qofka ku tusiyo dhaliilo adig aadan lahayn uu ku tusinayaa. meelo ayuu kaa tusinayaa, meelo aad ka nusqaansan tahay mararka qaar, laakiin
aan ahayn wax waaw lasii weyneeyo oo wax iska caadi ah bini aadanka qof kaamil ah oo boqolkiiba boqol waxaa waaye perfect noqonayo ma jiro meelhaasayta marka uu kaa tusiyo qofkii waa inaad maxay ahayd aadan dan u galin waa inaadan u qaadanin mawduuc in run ay tahay oo qofka kale oo sunta ah wax uu kuu sheegayo adiga ay runkaa yihiin oo waxaas ay tahay aragtidiisa ama aragtideeda aadna ugu jawaabtid ra'yigaaga waaye adiga ayuu ku quseeyaa adiga saas adaa arko laakiin aniga ma arko wax adiga ku quseeya waa inaad tiraahid oo aad dareensiisid in adiga nafsiyan aanu ku dhaawicin hadalka kasoo baxay dhinacii sunta ahaa ayaga waxyaabaha ay jecel yihiin waxaa waaye in adiga ay ku dhaawacaan oo hadalka sunta marka ay kugu dhahayaan sunta ay fidinayaan hadal xun markay kugu dhahaan qayb ka mid ah waa fidinta sunta in adiga aad murugootid in adiga aad xanaaqdid in adiga maxayd aad ooysid aad tiraahid aniga saamaan kaa mudanahay aniga maasaan idhehaysaa oo maxayd aad ismurjisid waxyaabaha ay kaa sugayaan waa falcelinta marka rajabeel waxaa ugu ridi kartaa qofkan oo sunta ah oo noloshaada ku jira falcelin walbo asaga uu sugaayay cagsigeed inaad samaysid masalan inuu kaa caraysiyo rabaa qofkii ma caroonaysid waxba ma kasoo qaadaysid waxbuu sameynayaa oo ula kacay qofkii oo adiga waxaas kaa caraysiinayo ma caroonaysid ma muujinaysid waxaaba kasoo qaadaysaa waxaas inaanay waxba ku dhimin xaqiiqna waa qurux badan tahay inaanay wax ku dhimin maha inaad iska yeelyeelaysid laakiin haddii aad iska yeelyeeshid xataa iska yeelyeelidaas ugu dambeyntii waxay ku gaarsiinaysaa wax run ayay ku gaarsiinaysaa oo jirkaagii run ayuu qaadanaya oo inaanay waxba ku dhimin wax xun ma iska yeelyeelida laakiin xaqiiqda waxaa fiican in aanay waxba ku dhimin waxa kaaga imaanaya dhinaca sunta ah oo gudahaaga adiga aadan gelinin masalan qofkii wuxuu kaa sugayaa inaad carootid wuu kaa caraysiinayaa ma caroonayo aniga dan iyo heelam u galaayo waxyaabay sameynayaan adiga ay kugu dhaliilayaan ama ay kugu dhaabacayaan waxba iima dhimin waxna kama soo qaadayo waxaa lagu leeyahay masalan waxaa jira oo yaryariis ah oo dadka maxay ahaatay sunta ay adeegsadaana jirto xataa deriskaaga hadayiin waa ka helaysaa taasiyt gabdhaha weliba u badan yihiin hadda ka hor waxaan xasuustaa aniga islaan waxay u dhihi jirtay dhar waxaa jirta midabo oo aan aada u jeclaa oo ilaa hadda aan jeclahay oo aan qaata midabka cadaanka midabka blueg oo khafiifka sida cirkoo kaleenta marka mar walbo mararka qaar waxaa isku qaadan jiray saaka cadaan ah oo white ah iyo gabsaar blueg ah markaas waxay leedahay markaa dharkaas aan gishtaba ayada way diidaysaa waxay leedahay ma ku qurxanid iskuma jeedid miya wax nooma dhexeeyo wax iskuma lihiin laakiin bas يعني مر dambe waa fahmay يعني problemkeeda mar dambe ayaa ogaaday soo qofka markaad wax fahamtid oo wax baratid waa ogaanaysaa ciladii meesha ay ka socotay marka sababaha loo barto cilmi nafsigan waxaa kamid ah xiriirada dadka dhexe inaad ogaatid dadka hareerahaaga waxyaabo badan oo waxaa jiro ku iftiimaayo oo markii hore aadan fahmeyn waqtigaas waqti hore waay aan hadda aan ka hadlaayo waqti horena waa ogaaday يعني mar hore waay adiga hadday u badato waxaa waaye 20 sano waa gaar haddii kale waa kasii yaraa umaleynaa waqti aan aada u yaraa ahayd markaas waxay leedahay dadkoo dhan marka waxay leeyihiin markaan dharkaas aan xirto allah dhar qurux badan maanta aa wadataa fustaankan iyo gabsaartan qurux adig dhan nooc kaleenta ayaad ku noqonaysaa soo anigana markaa muraayada taagana waa ku qanacsanaa waa ku qurux badnaa marka meelahaasoo kaleenta way kaasoo galayaan ayaga marka hadday ku dhahaan dharkan oo kaleenta kuma qurux badnid waa inaad dharkaas aad xirataa waa in aad xirataa waayo niyadda way kaa dilayaan maaha macnaheed inaadan ku qurux badneen ayaga barboleemkooda waxaa dhibaya waxaa laga yaabaa dharkaas inuu munaasib ku yahay quruxdaada ee muuqanayso oo maxay ahayd dharkaasay usoo jiidasho u leeyahay oo ayaga ay dhibsanayana laga yaabaa wax walba oo kusoo saaraayo marka inay gadaal kuu celiyaan waxaabay niyadday kaa jibinayaan haddii ay ku dhahaan dharkan ku qurux badnid ha maqlin maraayad waa arkaysaa adigu as aragtaa dadaa jeceshahay jirto oo ku arkaayo soo ma dharka marba haddii dharka jirkaaga uu qarinaayo uu asturan yahay jir asagoo dharka astur ah haddana waxaa jira dharku munaasibaayo midab waxaa jiro kusoo saaraayo oo qurux badan ayaa jiro marka maraayad hortaada waa kuu maclimad soo ha maqlin meelo waxaa jira ay kaasoo galgalayaan masalan waxbaa sameysay waxbaa baranaysaa waxay ku leeyihiin adiga waxaan haddii aad heerka gaartid aniga heblaaya maba ihib aniga hebel maba ihib dhaaray kuu maraayaan waa niyad jibin waxay rabaan waxa aad samaynaysid inaad meesha aad ugu tagtid
waxaas sii hay sii wad waayo qofkan asaga uu dhibsanayo isweydii waxaan haddii aad samaysid maxay tahay asaga waxa ka qusay waxaanayti isweydii sii wad meelo badan oo waxaa jira ay kaasoo galgalayaan laakiin dadka qaar aanay fahamsaneen laakiin markii waqti la joogo waxaa waa aad fahmaysid ama warkaad wax baratid ama wacigaaga u kordha amba maxay ahayd wixii aad fahamtid la noolaanshahoodii aad fahamtid waxaa waaye waa fahmaysaa qofkaanayti in hadaf kaleenta uu noloshaada u kaleeyahay marka sababta aa u guuleysanaysid waxay tahay qofkan markuu asaga uu qayliyo amba ayada ay qayliso kaa careysiiyaan adiga ha carooni mar walba oo aad samaysid sidooda oo kaleente mar walba oo adiga aad ayaga raali gelinaysid waa masalan akhlaaq darada inaad akhlaaq dara aad ugu celisid ayaga sii rabeen waa inay kaa saaraan adiga waxa aad tahay waxa aad aaminsantahay inay kaa soo bixiyaan masalan waxaa tahay qof aada u edab badan oo akhlaaqdiisa aan u ogolaanaynin in maxaeed uu sameeyo noocaas oo kaleente ayaga marka ay kaa caraysiyaan haddii aad samayso way farxayaan waa waxay kaa soo saareen akhlaaqdaadii wanaagsaneed oo quruxda badneed ayay kaa soo saareen toodii ayay kusoo geliyeen way farxayaan waxay ku farxayaan inay kusoo jiiteen oo ay ku bedelayaan tartiib tartiib ayay ku guuleysanayaan marka marnaba ha u ogolaan waxyaabaha rajabeelka kurid waxaa ka mid ah wax walba ay kaa sugayaan markaad adiga aad cagsigeeda aad samaysid qofka sunta ah waxaa ku dhacaya rajabeel wuxuu ogaanayaa qofkan inaanu ahayn qofkii saxda ahaa ee asaga uu haysan kara inaanu ahayn oo sida ayaga ay rabeen aadan sameyneynin ayay ogaanayaan sabab waxay bilaabayaan inay raadsadaan qof kaleente shabaq u dhigtaan ayay raadsanayaan tartiib tartiib waxaa waaye niid jabaa ku dhacay maadaama aanay kugu sameyn karin wixii ay rabeen oo haddii ay qalad sameeyaan aad dhehaysid jooji weliba si degan aad u dhehaysid haddii ay rabaan inay kaa caraysiyaan aadan carooneynin haddii maxay ahayd go-aan marka tan ugu fiican waxaa markaad go-aan aad ka qaadato qofkaas sunta aad ka fogaatid oo haddana aanay waxba ku dhimin dacaayadaha ay fidinayaan markay dacaayad ay sameeyaan oo kaleente waa lagu caaynayaa waxaa lagaa abuuraya soomaa filna lagaa abuuraya sheekooyin run eg ayaa la abuuraya waayo bulshadii waxay kuleeyihiin qofkii asaga u dhawaa ayaa saan sheegaayo dadka waxaa waaye dhawo ku garaad la waaye see been ku noqon kartaa heblaayo oo u dhow ayaa saan tiri hebel xaaskiisa ayaa saan ka sheegtay see been ku noqon kartaa heblaayo saygeeda ayaa noocan ka sheegay see been ku noqon kartaa waxay ayaga iska kaa og dadka aragtida noocaasad waa bulshadeena markii loo fiiriyo marka adiga aadan sameynin falcelin oo aadan dhihin aniga noocaas ma ihi aadan sameynin tabriiraad aadan sameynin in adiga aadan ku qasbaneen inaad iscadaysid adiga waa taqaanaa qofka aad tahay nooca aad tahay waa taqaanaa aadan danka gelin qofkii wuxuu ogaanayaa ishaacadii amba dicahaydii ay fidinaayeen inaanay wax ku dhimin haddana meeshaas waxaa kasoo gaaraayo niid jab kaleenta ayaa kasoo gaaraya iyo rajabeel ayaa ku dhacaayo oo qofkan aniga waxaan rabay markaan dicaayada aan fidinaayey markaa aniga ku caynaayo markaan sumcadda kaa dilaa inaad carowtid inaad soo fariisatid haddii hadda social media laakiin waagii hore social media ma jiro sooma haddii social media inaad soo fariisatid oo sida aniga ku soo adigana aad isku difaacid aad tiraahid maya aniga noocaas may aniga waxaas ay saasay rabaan marka ay sameynayaan inaad falcelin aad samaysid laakiin falcelintaada markay noqoto aamusnaan waa ka guuleysatay sida ayaga ay rabeen uguma aadan falcelinin waayo waxba kuuma dhimin waxa ay sameynayeen sumcad delisti ay fidinaayeen waxba kuuma dhimin oo kuma dhaawicin damqashana kuuma sameynin wax caadi inaadan maqalna kasoo qaaday rajabeela meeshaas ku dhacay qofkii wuxuu ogaanayaa qofkan inuu yahay qof aan la loodin karin qof maxay ahaatay aan gambarkiisa lagu fadhiisan karin oo si walba waxbaa laga sheegay ma kuu soo raacanin dan iyo heela kaama galin maxay ahaatay noloshaada wuxuu awood u yeeshay inuu ka baxo qof adag waay qofka awood u yeeshay inuu ka baxo qof sun ah weliba tusiyey inuu ka guuleystay oo noloshiisa aanay istaagin weliba waxyaabaha rajabeelka kusii ridaya waxaa ka mid ah dadka sunta ah qofkii ay sumeyn jireen markii noloshooda uu ka baxo amba gabar ha ahaato amba wiil ha ahaado qofkii oo noloshiisii ay caadi u socoto oo wax isbedel aan ku dhicin bilcagsi ku dhacay isbedel qurux badan haddii isbedel ay sameeyeen ee noqonayo isbedel qurux badan haddii ay shaqo tahay shaqadooda sii socoto heer sare kasii gaaray haddii waxbarasho ay tahay waxbarashadoodii sii wato oo heer sare ka gaaray qofkii waxaa ku dhacaya rajabeel oo sunta ah oo sunta fidinaya wuxuu ogaanayaa in suntiisii qofkan sida asaga uu rabi aanay u saameynin meeshaas waxaa ku dhacaya rajabeela ku dhacaya waxaana imaanayso quusa imaanayso hadalkii wax uma dhimin
suntii uu kugu soo talaalayay sanooyin badan waa ka daawowday adigoon xataa mararka qaar aadan dhakhtar aadin adigoo maxay ahaatay aadan dacwoonin adigoo meelaha aadan ku ooynin adigoo maxay ahaatay qofkii waxaa ku dhacay oo sunta ahaa rajabeela ku dhacay saa waxay sugayaan ayaga markay noloshooda horta inaadan ka bixin haddii aad ka baxid xataa inay ku daba socdaan oo maalin walba liska daba jiijiitamo saanay idhahday saano idhahay saanay idhahday saano adiga waa ka gaabsatay buuggaas dhan waxaa waaye waa la laabtay qashin qobkaa geysay meesha ugu fiican waxaa waa qashin qobka inaa geysid ama aad gubtid asaga dhanba waxaaba aad ka takhalustid khalaas aad rurun ugu bogsootid xataa adoo beenbeen naftaada u sheegaya mararka qaar runay noqonaysaa laakiin runta inaad ugu bogsootid isku day oo dib dambe aadan u fiirin haddii aad fiirinaysid ay noqoto waxbarasho oo masalan markii tusaalooyinkaas oo kaleenta ay kugu soo dhacaan ee noloshaada hore ay imaadaan hortaada imaadaan aad soo xasuusatid qofkii amba qoftii ay kusoo xasuusiyaan aad tiraahid alxamdulilah cashirkaas hore u soo maray mar kaleenta ima kedin kartid mana igu khiyaani kartid inaad tiraahid waana ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaada qaaliga aad siisay videogan video xiga intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaaw